بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصحابي ميل كستا جوجتان يسكساد نو داونيسان مقعيقو هو أحمد سليم جنال كداونيسان وسليم صومالي تي في. فضلا هتدكو عصبتها السبسكرايب سار او أصحاب تادا اللوداقا. دراسة شاعة كقادي مدة ugu badan ay dumarku sirta qarin karaan. daraasad dhanka cilmiga bulshada ah oo Mareykan ku sameeyay ayaa muujinaysa in haweenku hayn karaan sirta wax ka yar 38 saacadood badankooduna ay sirta u dusiyaan dad aysan qusaynin oo aanan danaynin. Dr. Margaret Paul oo ku takhasustay cilmiga bulshada kana howlgasho jaamacadda Michigan ee dalka Mareykanka ayaa qortay warbixin dheer oo ay ugu magac dartay haweenaydu waa wakaaladii wararka ee ugu qadiimsaneed caalamka. ayaa waxay ku sheegtay in haweenaydu sirta xafidi karto muddo 38 saacadood ah ugu badnaan, iyadoo daraasadda lagu sameeyay ilaa 500 oo haween ah oo ku dhaqan waddanka Masar, da'dooduna u dhaxayso 18 sano ilaa 60 sannadood. haweenkuna waxay ictiraafeen inaynan hay karin sirta ay ogaadeen, si kastoo ay sirtaasi u tahay mid shakhsiyadeed ama mid khatari ay ku lifaaqan tahay. daraasaddu waxay caddaysay in haweenku sirta u gudbiyaan cid aanan danaynin oo aan wax xidhiidh ah aan la lahayn, mawduuca ay sirtu ku saabsan tahana aynan qusaynin, iyagoo 3 duleel 2 duleel ay haweenku ka mid yihiin dadka dareemaya ciriiri iyo dhibaato kadib markay ogaadaan in ay sirta dusiyaan. daraasadani dhanka kale waxay muujinaysaa in adeegsiga taleefanada iyo internetku ay ka sii qayb qaadan karaan in sirta la gudbiyo, laakiin haweenka ku nool dhulka baadiyaha ayaa la ogaaday inay sirta bixiyaan iyagoo beeraha ku sugan. dhanka kale waxaa jira baaqyo iyo fikirro kala duwan oo aan bixin sirta iyagoon u kala qaadaynin rag iyo dumar. tusaale ahaan, haweenayda lagu magacaabo Murawa Rufaaci oo macallimad ka ah jaamacadda Xilwaan ee magaalada Qaahira waxay aaminsan tahay in bixinta sirtu ku xiran tahay tarbiyada uu qofku bini'aadamka leeyahay. waxayna caddaysay haweenaydaasi inay carruurtu yihiin dadka ugu badan ee sirta xifdiya ilaa waqti badan, waxayna intaas ku sii dartay in dadka waaweyn oo loogu talagalay inay sirta xifdiyaan ay iyakuba sii daayaan.